بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى waxaan soo gudbinayaa mowduuca kan ku saabsan in dadku ay ku dadaalaan acmaasha saalixada ah, camalka wanaagsan ee ilaahay raalli ka yahay in lagu dadaalo oo acmaasha la hagaajiyo. ilaah baa mahad iska leh. naxmadu allaha subxaanah wanastaciinuhu wanastakfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaan dhammaan u dardaarmayaa, naftaydana u dardaarmayaa cabsida allah subxaanahu wa tacaala, in allah subxaanahu wa tacaala laga dhowrsado. qalbiga ayaa ku iftiimo, quluubtuna way noolaataa. cabsida rabbi qalbiga ayaa ku nuura. qalbigu noloshiisa waxa weeyaan waa taqwa allahi, ilaahay cabsidiisa. walaalayaal dhammaantiin, waxaad ogaataan allah subxaanahu wa tacaala inuu ku sifoobay sifaad sare, sifooyin suuban oo sare inuu allah subxaanahu wa tacaala ku sifoobay. allah subxaanahu wa tacaala allaha ku sifoobay kamaalka dhammaystiran, sifooyinka suuban, asmaa'da wanaagsan, magacyada suuban. allah subxaanahu wa tacaala khalqigan iyo koonkan uu abuurayna wuxuu ku abuuray si aad iyo aad u dhammaystiran oo hagaagsan buu ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala. qur-aanku ku caddeeyey sunca allahi aladii atqana kulla shay. khalqiga koonkan uu ilaahay abuuray dhammaan waa sanaacadii iyo suubintii iyo hagaajintii allah uu hagaajiyey, oo shay walbana uu si wanaagsan u abuuray oo u hagaajiyey. allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah waa hadalkiisi, wuuna hagaajiyey, wuuna caddeeyey macnihii qur-aanka kariimka aayadba aayadda kale uu ka sii faahfaahiyey. saad qur-aanka markaad akhrinayso waa kitaab xikmad badan wey. qaala subxaanah kitaabun uxkimat aayaatuhu huma fusilat min ladun xakiimin khabiir. kitaabka qur-aanka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hagaajiyey oo dhammaystiray kelimadihiisa iyo macnihiisa. allah subxaanahu wa tacaala casa wajal wuxuu hagaajiyey addoommadiisa, wuxuuna faray inay suubanaadaan, ay ku dadaalaan amar kasta oo suuban. wuuna faray wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin. war wanaagga fala. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka suuban buu ilaahay jecel yahay oo wanaagga falo. yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu yidhi qur-aanka kariimka oo nagu faray wa axsinuu wanaag fala, ina allaha allah subxaanahu wa tacaala yuxibu almuxsiniin, mufasiriintu waxay ku fasireen ay axsinuu acmaalakum wa akhlaaqakum. wardad yahow hagaajiya acmaasha aad samaynaysaan, falalka aad samaynaysaan iyo dhaqankiinaba hagaajiya. marka in
camalka la hagaajiyo waajib weeye. addoon walba waxaa waajib ku ah inuu camalka wax alla waxaad qabanaysa inaa hagaajiso weye. ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay. nabiga waxa uu yihi calayhi salaatu wasalaam, allah subxaana wa tacaala wuxuu ku farad yeelay, ku waajib yeelay shay kastoo la qabanaya in la hagaajiyo. allah subxaana wa tacaala makhluuq walbo wuxuu ku waajib yeelay wanaagga, sida u wanaagsan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo faray in loo sameeyo. nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ammaanay dadka suuban buu nebiga ammaanay, oo xadiid nabigeena ka sugnaaday waxa uu yihi calayhi salaatu wassalaam, khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camalah. dadka waxaa ugu khayroon qofka cimri dheer alla siiyey, camal suubanna alla siiyey ayaa dadka ugu khayroon. acmaasha rusushii suubanaa haddaan eegno, dhammaantood waxay ahayd acmaashooda acmaal suuban, ma ka daalayn camalka suuban rusushii alle. mathalan tusaale, nebiyullaahi nuux calayhi salaam qoomkiisii 1,000 sano oo 50 sano dhiman buu dacwada alleh iyo towxiidkiisa ugu yeerahayay. dacaa qowmahu 1000 sanatin ilaa 50 caaman. 950 sanuu nebi nuux qoomkiisii dacwada khayrka, towxiidka, wanaagga, cibaadada alleh ugu yeerayay. habeen iyo maalin ayuu u yeerayay, si hoose iyo si muuqato intaba waa ugu yeeray. qaala rabbi innii dacawtu qowmii leylan wanahaaran. aayad kale waxa uu ku yihi, huma aclantu lahum wa asrartu lahum israara. si hoose oo sira, si muuqato, habeen maalin, nooc walbo ayuu ugu yeeray oo inay ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyaan, kamana daalin ilaa 950 sano. nabiyullaahi nuux camalkiisii waa hagaajiyey, rusushoo dhanna sidaasay ahaayeen. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam, wa ibraahiima aladii wafaa. ibraahim waa oofiyey ballankii alla, waa oofiyey. waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun. wuu dhammaystiray wax alla wixii ilaahay uu kula ballamay, si wanaagsan buu u dhammaystiray. wuxuu oofiyey taacadii alleh, wuxuu gutay risaaladii loo dhiibay ee dadka gaarsii la yidhi, ee khalqiga alle gaarsii la yidhi, towxiidkii si wanaagsan buu u oofiyey. noloshii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye tusaalaha ugu wanaagsan yacni oo la qaato, oo wanaagga iyo samafalka nabigeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa maaragtay ugu horeeyo. allah subxaana wa tacaala wuxuuna faray inaan kaga dayanno wanaagga iyo samafalka, inaan kaga dayanno ilaahayna faray nebiga sala allahu calayhi wasalam. laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira. wardad yahow waxaa idinku sugnaaday dayasho wanaagsan inaad ku dayataan rasuulka sala allahu calayhi wasalam, inaad ku dayataan. waxaa nebiga ku dayanayuu ilaahay ammaanay dadka rajaynaya la kulanka alleh yowma alqiyaama, in badanna ilaahay xusay, kuwaasaa ku dayanaya nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam. allah subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo karamkiisa addoommadiisa uu karaameeyey, wuxuu u kala yacni maaragtay bedelay mar walba, waqti walba waxaa loo kala bedelayaa acmaasha suuban. marka si yacni maaragtay ay abaalmarintoodu u weynaato, waxaa arkaysaa zaman walba camal saalixa ayuu ilaahay keenay. mathalan zamankii yacni salaadii iyo taacadii say u socoto, soonkii baa imanaya waqtigiisii, haddana waxaa imanaya waqtigii zakada, haddana waxaa imanaya waqtigii xajka. wahaakada acmaasha saalixadu ilaahay u kala bedelay si maaragtay acmaal wanaagsan ay u gutaan oo ajir suubanna ay u helaan. hal jazaau lixsaani ila alixsaan. imaamka ibnu kathiir waxa uu yidhi,
qofka camalkiisa hagaajiya adduunka aakhara waxaan wanaag ahayn ma leh, wanaag baa ilaahay ku abaalmarinayaa. qofka caqiidadiisa hagaajiyo ilaahay subxaanahu watacaala caqiidadiisa iyo qofka hagaajiya caqiidadiisa suuban, caqiido suuban ka dhigo, caqiido towxiidka allah ka dhigto, qofka ilaahay wuu u laablaabaa acmaasha. xasanadii halkii xasano ah waxaa loo qoraa 10 laab. alxasanatu bicashri amhaaliha, ilaa 700 baa loo laablaaba. caqiidadaada iyo niyadaada saalixada ee suuban bay ku xiran tahay acmaashaada. salaada dadka tukanaya waa kala ajir badan yihiin. qof baa 100% qalbigiisa ilaahay ku xiran, qof baa marmar hafwo ku dhacaysaa. haddaba waxaweye qofka caqiidadiisa suubiyo ee ilaahay subxaanahu watacaala casa wajalla yaqiiniyo, acmaashiisa alla waa u laablaabayaa. hadduu xasano la yimaado 10 laab baa looga dhigi, hadduu dembi yar ka dhacana 1 dembi unbaa loo qorayaa. kelimada towxiidka ah qofka ku dhawaaqo kuna camal falo si saafi ah acmaashiisa ilaahay ugu guto, kana fogaado wax alla wixii burinayo towxiidkiisa. kelimatu towxiid qofka ku dhawaaqo, yaqiin ugu dhawaaqo, allah subxaanahu watacaala wuxuu ka xarimaa wejigiisa naarta. qaala sala allahu calayhi wasalam ina allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah. allah subxaanahu watacaala wuxuu naarta ka xarimay qofka yiraahdo laa ilaaha ila allah asaga oo ilaahay wejigiisa la doonayo, alla dartii ugu dhawaaqay, yaqiin ay ka tahay. qofka laa ilaaha ila allah qalbigiisa ka yiraahdo, ilaahay subxaanahu watacaala naarta ayuu wejigiisa ka xarimaa, naar arki maayo, macnaha ahlu janno weye. qofka hadduu ilaahay tala saarto oo umuurtiisa ilaahay u dhiibto, acmaashii ilaahay jannadu gelinayaa xisaab la-aan. xisaab la-aan lama xisaabinayo. qofka ilaahay tala saarto, taladiisa u dhiibto, jannada xisaab la-aan buu galayaa. inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. maraatibta diinta waxaa ugu wanaagsan. diintu waxa weeye waa islaam iyo iimaan iyo ixsaan, 3 martabo wey. islaamku waxa weeyaan waa towxiidka alleh, salaadii, soonkii, zakadii, xajkii. iimaankuna martabo weeye, waa rumaynta ilaahay la rumaysan yahay, malaa'igtiisa, kutubtiisa iyo rusushiisa si yaqiina loo rumaysan yahay, iyo yowma alqiyaama oo la rumaysan yahay, iyo qadarkii khayr iyo shar. marka martabo wey iyadana. martabada 3aad waa ixsaanka, an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka. idan acdam martaba oo diintu ay leedahay waxa weeyaan waa ixsaanka, waa in ilaahay loo caabudo sida adigoo arkayo. haddaadan arkayna allah subxana watacaala isagaa ku arkayo. marka muraaqabada, marka ilaahay caabudayso, salaadaada inuu ilaahay ku hortaagan yahay, camal kastoo qabanayso ilaahay wejigiisa aad la doontay, ixsaankaasaa la yidhaahdaa, waana martabo sare. marka taasaa maraatibta diinta ugu dhammaystiran weeye. marka addoonka hadduu cibaadadiisa hagaajiyo wuxuu helayaa ajir aad iyo aad u weyn. mathalan qofka weysaysto oo weysadiisa hagaajiyo, oo markuu weysadii dhammeeyana yiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluhu, markuu weysaystay sidaa yiraahdo, ilaa futixat lahu abwaabu ljanna 8, 8 albaaboo jannada hal mar u furmayo. furihii weeye, furihii albaabkii jannada weeye. waad weysaysatay, weysadaadaad hagaajisay, maalin walba markaad weysaysato iyo saacad walbo, markaas inaad tiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluhu, intaa kelibaad leedahay. waxaa kuu furmahayo automatic ahaan 8 albaab oo jannada ayaa kuu furmay, midkaad doontaad ka gelaysaa. ilaahay baa jecel markaa towxiidkaas iyo weysadaas aada hagaajisay baa ilaahay kuugu furay albaabkadii jannada iyo kelimada towxiidka ah. qofka addimaya ee codkiisa kor u qaaday, cid kasta oo maqasho
jinni iyo insi iyo geed iyo wax walbo iyo malag wixii maqlo ayaa yowma alqiyaamo u markhaati kacaya adinka. xadiidkaa waxaa wariyay imaamu albukhaari: fainahu laa yasmacu madaa sawtihi jinnun walaa insun walaa shay-un ilaa shahida lahu yowma alqiyaama. qofka addimahayo markuu addimo kelimadda u danbaysa waxa weeye laa ilaaha ila allah. qofka ag fadhiya ee addinka dhegaysanaya hadduu yidhaahdo laa ilaaha ila allah asaguna oo qalbigiisa uu ka run sheego, jannaduu gelayaa. xadiidka imaamu muslim baa wariyey: waidaa qaala almu'adinu aakhira aladaani laa ilaaha ila allah faqaala man samicahu laa ilaaha ila allaha min qalbih dakhala aljanna. rawaahu muslim. safkoo la hagaajiyo salaada marka la tukanayo waatuu imaamku leeyahay safka hagaajiya. safkoo la hagaajiyo waa salaada wanaageeda iyo dhammaystirkeedu ka mid yahay. marka ma arkaysa ragga safafka ay salaada marka la tukanayo, safafka waxaa ugu khayr badan, safka ugu horeeyaa ragga ugu khayr badan, dumarkane kan ugu dambeeyaa u khayr badan. toddobada ilaahay uu u haraynayo muxuu harka jannada waa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid, qof qalbigiisa uu ku xiran yahay masjidka. qofkaa weeye qofka uu maaragtay haraysanaya harkii jannada. salaada oo la hagaajiyo thawaabkeedu waa laablaaban yahay. nabigeenna waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam: famaa min imri'in muslimin taxduruhu salaatun maktuuba fayuxsinu wuduu'aha wa khushuucaha wa rukuucaha ilaa kaanat kafaaratan lima qablaha min addunuubi maa lam yu'ta kabiirah wadalika addahru kulluh. waqtiga salaada ay soo xaadirto qof muslina ma jiro oo salaadaas ay u soo xaadirtay weysadiisi hagaajiyey, markuu tukanayeyna khushuucay, rukuucdii ku khushuucay, ilaa salaadaasu waxay tahay dembi dhaaf, dunuubtiisii oo dhan bay tirtirtay. yacni hadduusan wax dembi oo kabaa'ira ku dhicin sanadka oo dhan dunuubtiisi waa eber, waa la tirtiray. imaamu nawowi waxa uu yidhi allaha u naxariisee: التكفير بسبب الصلاة مستمر في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان. يعني صلاة إنay dembiga lagu dhaafo arintaasu waa arrin joogto ah, waqti kuma xirno. haddaad bas salaada weysadeeda hagaajiso, si wanaagsan oo khushuucle iyo rukuucdii aad ku khushuucdo, ilaahay hor istaagto adiga oo khushuucsan, waxaa weeyaan dunuubtaadii oo dhan baa lagu tirtiray. waqti kuma xirna, ayi salaa oo tukato dunuubtaadii baa ilaahay kaaga tiraya. waman tawada'a fa axsana alwuduu'a huma ata aljumcata fastamaca waansata gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumcati wa ziyaadatu 3 ayaam. rawaahu muslim. qofka weysaysta maalinka jumcada ah weysadiisa hagaajiyo, kadibna jumcadii yimaado oo dhegaysto oo aamuso, dunuubtiisii oo dhan baa loo dhaafaa 10 beri. jumcadii ilaa jumcadii kale waa lagu dembi dhaafay, markaasaa 3 beri oo ziyaadana lagugu darayaa oo dembi dhaafa. rawaahu muslim. warakcataa alfajri khayru min addunya wamaa fiiha. labada rakco oo salaada subax sunnada ka horeyso adduun oo dhan bay ka fadli badan tahay iyo waxa ku sugan. maanta haddii lagu siiyo adduunyadan iyo waxa xoolo yaallo, waxa maal yaallo, waxa dahab yaallo, waxa ka khayr badan buu nabiga yidhi labada rakco oo sunnada ah oo fajarka ka horeeyo. iska ilaaliya labada rakca, qabsada. khayrun min addunya wamaa fiiha. rawaahu muslim. wasalaatu almar'i fii beytihi afdalu min salaatihi ila almaktuuba wa afdalu asalaati bacda alfariidati salaatu lleyl buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. qofka salaada uu gurigiisa ku tukado ayaa u fadli badan. wasalaatu almar'i fii beytihi afdalu min salaatihi ila almaktuuba. salaadii qofka guriga uu ku tukado sunnada ah waa salaada ugu fadli badan. amaa salaada maktuubada ah waxay ku fadli badan tahay masjidka. salaad waxaa ugu fadli badan sunno ah tan gurigaada ah ku tukatay. amaa salaada fariidada ah tan masjidka ah ku tukatay baa u fadli badan.
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة لتكذنه وحا أغفضل بدن صلاة الليل إلا صلاة فرض كأمويه صلاة سنة وحا أغفرض بدن صلاة هبين كل تكذا محال دتك وهردان هذا ولا ليال وحاد أغاتان إن محوها عمل كالصوباني ويهي يعني ما ركتي عمل آدي الله أجعلها أعماش إن لها جاجيه مركب ولا ليال هل قد ذال أعماش الصوبان إن شاء الله تعالى هدي إلهي إلى هذا الجمعة كلا أيام لما يسترينا أعماش الصوبان يفضل جيده وحال لكن أنكو ختمة يا وحال إذين كجو رمي وعلمي علمي النافعة عملك الصالحة ويوحى الجنة لو قرأ مركع إن لها جاجيو أعماش الصالحة إن لها جاجيو محوها النيد إن لصوبيو والنيد لها جاجيو وخالص إلهي سبحانه وتعالى لو قرأ مركع هذا وحى عن شيء إنه وعلمي وحد أوقاتان علمي واجدك جنة جدكيدي وعلمي ويه قرآنك إن لبرتو يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لبرتو وعلمي النافعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم